بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أنت أسكدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد العزيز عربي مركلة برنامج كيني silsilada geedi socodka nolosha xagee ka nimid xagee soo socnaa. Xalqadii hore waxaan ka soo sheekeynay hordhac barnaamijka ah oo aan kaga sheekeynaynay su'aalo iyo waxyaabaha barnaamijku uu wajahayo, ujeedooyinka barnaamijku muxuu daruuri u yahay, maxaan igu kalifay inaan barnaamijkan aan qoro oo soo gudbiyo aniga iyo saaxiibadayba aan isla soo qorno, aan soo diyaarino oo aan soo gudbino. Maxay tahay sababta hadda uu muhiimka u yahay, muxuu ka anfacayaa bulshadeena. xalqadaas ayaan kaga soo sheekeynay. xalqadan maanta waxaan kaga hadlaynaa manhajka barnaamijka. waa muhiim markii ummadda aad wax la wadaagaysid, ama ha noqoto wax qoraal ah oo buug la qorayo, ama maqaal la soo qorayo, ama ha noqoto muxaadaro la soo jeedinayo, ama xalaqaad la soo jeedinayo, waxay rabtaa noqotee waxaa loo baahan yahay in bulshada lala wadaago manhajka qofku u maray, waxa uu sheegayo iyo meesha uu ka keenay waxay yihiin. marka insha allahu tacaala waxaan ka hadlaynaa manhajka methodology-ga aan u marnay iyo qaabkan ugu maray iyo sida tahay say wax yihiin insha allah xalqadan gebi ahaanteedaba. marka waxaan raba ugu talagalay waxaa weeye in markii xalaqaadka aan guda galno inaysan dhicin hadhow in qof uu yiraahdo xagee ka keentay waxaan, xagee u martay, buugay ku qoran yihiin. insha allah iyaduna waa sheegi doona buugagta ku qoran yihiin iyo meeshaan ka keenay. haddana laakiin inuusan qofku, waxaa loo baahan qofkii ay u baahan inuu ogaado manhajkii iyo methodology-gii aan marnay, in waxaan rabnaa xalqada labaad inuu soo aado si uu u barto wadadii loo soo maray barnaamijkan. marka insha allahu tacaala waxyaabahan wadooyinkan u maraya manhajkan waxaa ka mid ah number 1 scientific findings. waxaan daraaseynaynaa helitaankii waxyaabihii la helay oo science-ku especially sababtoo saynisku waa maado muhiimna ah. cilmi badan iyo xigmado badan iyo waxyaabo fara badan oo xaqiiqa ayaanu ka baranaynaa, aan ka faa'iideynaa. oo sayniskuna asalkiisu wuxuu u yahay asalba sayniska lagu sheegayo ma aha wax dadku ay la dhashaan ama ay uurka hooyada kala soo baxaan, ama wax dadku ay dad caqli leh ama caqli badan leh keliya ay fahmaan. saynisku waa symbol, waxaa weeye observation iyo experiments. waa kormeerid wax dhacaya, xaalad dhacaysa ama fal dhacaya oo la kor istaaga, la kormeero, daba iyo dacal loo kormeero, iyo in haddana lagu celiyo experiment, tijaabada la sameeyo. markaas tijaabooyinkii la sameeyey iyo kormeerkii wixii iska waafaqay oo la qoray ayaa la soo gudbiyaa. markaas wuxuu noqdaa wax scientific fact. marka waa wax saas simple u ah. tusaale ahaan guriga adoo jooga baad waxaa dhici karta in aad ku samaysid scientific observation iyo scientific experiment, kormeerid science iyo tijaabo science ayaa guriga adoo jooga waxa suurtagal ku noqon karta inaad samaysid. waa simple ina sababta wax walba oo agtaada ah oo yaala ama ha noqdaan hawada, ha noqoto ama adkaha agagaarkaaga yaala ha noqdo, waxaasoo dhan waa waxyaabo experiment aad ka samayn kartid. ama ilmuhu markay dhashaan oo kale maalan oo kale waxay jecel yihiin inay ogaadaan waxay yihiin. koobkuu qaadaya dhulku ku tuuraya, qalin buu qaadaya dhulku ku tuuraya, ama derbigu ku qorqoraya. marka waxaa loo baahan yahay waalidka in uusan ka fakirin koobka uu cunugu dhulku ku dhuftay uu jebinayo, laakiin uu ka fakaro cunugu inuu cashar ku baranayo. sababto cunugu wuxuu samaynayaa scientific experiment in koobkan dhulka haddii lagu dhufto uu jabayo. wuxuu ogaanaya marka koobka wuxuu ka samaysan yahay, inuu dhalo ka samaysan yahay, uu jabay. dhacdadaas laftigeeda ayaa waxay tahay scientific observation iyo scientific experiment oo ilmaha yarka uu sameynayo. marka sidaas ayay kusoo dhalatay. sayniskuna dee af Soomaali ahaan waa wada garanaysaan. waxay culimadeena Soomaalida ahayd ay sayniska waxay u turjumeen saynisku waa wixii saynisku waa wixii cuf iyo mug leh, meel marna buuxin kara. wixii cuf leh, cuf waad garanaysaan, mug leh yani miisaana leh, cufna leh macnaha kutle ah, miisaana leh, meel marna buuxin kara. bay maatar ku fasiran, sorry ma sayniska dheh maatarka maadada liyaada ayay ku fasiran. marka aan u soo laabana marka waxyaabaha manhajkan marayna waxaa ka mid ah scientific findings
observation iyo experiments. culimada sayniska waxyaabihii ay observation ku sameeyeen iyo waxyaabihii ay tijaabooyin kusoo sameeyeen ay noo soo gudbiyeen aan isticmaalayna. waxaan kaloo isticmaalaynaa historiographical methods oo ah manhajka qaabka taariikhda loo baaro. hadda innaga haddaan muslimiin waxaan leenahay sanad waxa la dhahaa ama isnaad. axaadiistoo kale sanaday leeyihiin, la dabagalo, la eego sanadkeeda iyo la daraaseeyo, manhaj loo maro leeyahay. marka taariikhda adduunkana manhajkaas oo kale leeyahay. marka waxaan sameynaynaa taariikhda adduunka since the record began ama qoraalka uu bilaabmay in wax la qoro ama la helay aathaar derbiye meel wax lagu qoray oo la heli karo oo cilmi ah oo taariikh ah oo dad yow kale ay ka sheekeynayaan. waxaas oo dhan baan insha allahu tacaala wixii ka qoran oo lasoo diyaariyey ayaanu isticmaalaynaa si aynu mataqaanaa oga jawaabno su-aasha barnaamijkeena. barnaamijka marka waxaa isku dayaynaa inuu noqdo neutral and impartial, inuu noqdo barnaamij dhexdhexaad ah oo aan dhinacna qaadanayn. markaan saas leeyahay waxaan ka wadaa aragtiyaha sayniska ama taariikhaha lasoo qoray lasoo gudbiyey ma radinayno, ma dhahayno kulligood mataqaanaa wax ka jira male, waa been, waa war gaalo iyo sheeko iyo nonsense ma dhahayno. mana dhahayno kulligood waa wax saxa oo sida qur-aanka oo kale u yahay waa in loo rumeeyaa sida dadka qaarkood ay aadeen. marka labada xag jirba ma aadeyno, meel dhexaan istaageen. waxaan leenahay indhahana u furayna, waxaan u barbardhigaynaa aqoonteena iyo cilmigeena iyo waxa uu naga tarayo ka jawaabida su-aashan. waxaan isticmaalaynaa sidoo kale manhajka aan isticmaalayna waxaa kamid ah secondary source, yani oo ah yani macluumaadka aan isticmaalayna waa macluumaad ma aha primary, ma aha macluumaadka koowaad, ma aha primary. waa macluumaadka qofka isagoo intuu baxo uu experimentiga sameeyo, dabadeedna markaas ama observationka uu sameeyo sayniska ahayd, dabadeedna uu mataqaanaa isagu uu soo gudbiyo wuxuu helay. laakiin waxaan isticmaalayna waxaa dad aqoon-yahan ah waxay soo heleen ayaan isticmaalayna. marka saasaan secondary source ka wadnaa. sayniska guud ahaan especially waxaan aad u isticmaali doonaa laws of physics, sharciyada ama qaacidooyinka physicska ayaan aad u isticmaali doonaa. waxaan isticmaali doonaa theology, waxaan ka isticmaalana qur-aankeena kariimka ahaa. ilaahi subxaana watacaala waatuu alla subxana wataala qur-aanka isku yiri ina hada alqur'aani yahdi lilatii hiya aqwam. qur-aankani wuxuu ku hanuuninayaa teeda ugu toosan. marka taasi shaki kuma jiro. marka qur-aanka mar walba waxaa weeye waa guidancegeena wey, wixiina hanuuninayay. sababtoo qur-aanku ma aha dhowr marna horena waan u sheegay dhowr mar hore, qur-aanku ma aha book science, ma aha. nasiib daro way dhacday dad badan oo muslimiin ah in ay mataqaanaa isku dayeen in aragtiyaha sayniska iyo qur-aanka ay isku waafajiyaan. noocaasna ma aha nooc qur-aanka loola dhaqmo. qur-aanku waa buug alla subxaana watacaala soo dejiyey. qur-aanku waxaa weeye inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun. annagaa soo dejina, annagaa xifdina. qur-aanku waa wax la xifdiyey ilaa iyo maalintii uu soo degay oo nabi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh kusoo degay ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaray. qur-aanka isma bedelaya, hal xarafna kuma kordhaya, hal xarafna kama dhimaya. halka saynisku uu isbedelo. aragtiyo saynis oo 10 sano ka hor sugnaa oo facts ahaa ayaa hadda waxay noqdeen kuwo aan waxba ka jirin, kuwo kalaa la qaatay. sababtoo ah saynisku waa cilmi aadane oo isbedelaya oo aqoonta aadanahuna waa wax limit ah xadidan. wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. cilmiga waxaan idinka siiyey wax yar mooyaan. marka cilmiga saynisku waa aqoon aadane, wax saxa way jiraan, way saxan yihiin, wax badan oo saxan way jiraan. laakiin haddana mar walba wuxuu u baahan yahay in tatwiir lagu sameeyo iyo development horay la hormariyo. marka waa wax limited ah. marka aad ba ayaan mataqaanaa ma jecli in isku dabaqo kitaabka qur-aanka iyo sayniska inta badan. laakiin wixii fikrada laga qaadan karo labada dhinacba in laga qaato waa arin aad u wanaagsan. waxyaabaha kamid ah mataqaanaa ijaaz cilmiga barnaamijka la dhihi jiray oo muslimiintu aad u wadeen 80maadkii iyo 70maadkii iyo 90maadkii. waxaa kamid dadka muslimiinta qaarkood sida rag badan oo aan doonin inaan barnaamijkan aan magaciyooda ku sheego oo culamo waaweyn ah oo muslimiin oo sihanaha qaarkood ayaa xataa waxay sameeyeen, waxay soo saareen qaacido xisaabeed oo ay mataqaanaa ay u sameeyeen qaacido dhisan oo xisaabeed oo dhisan ay dhiseen oo ay leeyihiin qaacidadan haddii la saxo waxaa la helayaa ilaahay meeshuu ka joogo. يعني هركاسي جارسين إعجازي علمي رأينتي دبقل كذي مركا أرنتاسن وأرن أنا وناكسرين تفسير القرآن كمركا ما دام إنت صومالي إنه هاي اللغة بنقول لنا واللغة صومالي بعد كل هالله صومالي بعد يقول فهم مثال مركا وحن استعمالها تفسير ك صومالي أفك صومالي يكون ترجمن أي ترجمين علماء بدن الصوماليات وكجري الله ونحرس الشيخ شريف عبد النور
iyo sheekh maxamed cabdi iyo culamo badan oo soomaaliya oo badan dhowra ayaa tarjumay kitaabka qur-aanka af soomaaliga oo qof walba soomaaliya gurigiisa laga yaabo in laga helay marka kaasaan tarjumaandi isagaan ka isticmaalayna insha allahu tacaala manhajka waxyaabaha manhajka aan isticmaalayno ama methodology aan isticmaalayno waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo universal laws oo ah qawaaniinta kowniga ah ilaahay u dejiyey koonkan oo aan isbedelayn ilaahay subxaana watacaala waatuu ka sheekeynaya yiri in badan ku celiy laa tabdiila likhalqi illah dalika addiinu alqayim laa tadbiila likalimaatih kalimaadka alle isma bedelayaan khalqiga abuurka alle isma bedelayo marka waxaa jira qawaaniin kowni ah oo alle uu koonkan u abuuray oo qofna uusan u bedelayn ama muslim ahaw ama gaal ahaw sida tusaale ahaan qaanuunka la yidhaahdo the gravity law ama isjiidadka yani waa wax jira waay haddii cunug yar oo baby ah oo nuuno ah uu kasoo dhaco dabaqa tobanaad uu dhulku kusoo dhacaya wuu dhimanaya dhulku kusoo dhacaya hawada ma joogayo cidna ma badbaadinayso ma garateen marka waxaa weye waa qaanuun kowni alla dhulka u dejiyay micnaheeduna ma aha alla inuu naxariis laawaya alla waa naxariista laakiin qaanuun kowni ayaa jira meesha dhiya haddii uu qofkii kasoo dhacan oo muslim ama gaal yahay resultiga ama natiijada waa isku mid ay noqonaysaa dhulku ku dhacaya qofku wuu burburaya ama wuu dhimanaya ama dhib weyn baa gaaraya shaki kuma jira taas waa gravity law marka waxaanu daraaseynayna marka waxyaabahaas qawaaniinta kooniga alla u dejiyey qaybaheeda kala duwan sida the law of opposite qaanuunka kala duwana iska soo horjeeda ama kala duwanaanshaha law of parity qaanuunka lamaanaha law of contradiction qaanuunka isku dhaca ama aragtiyaha kala duwan ama waxyaabaha kala duwan ee iska hor imaanaya law of adaptation qaanuunka mataqaanaa ii sheeg tabaniga af carabiga wax lagu yirahdo ama adaptation af ingiriiska wax lagu yirahdo oo ah mataqaanaa ii sheeg nooc min isbedelada ka mid ah iyo sidoo kale qaanuunka pluralityga ama tacadudka kala duwanaanshaha kala tira badnaanshaha baa iyaduna insha allah taala aan qaadan doonaa sidoo kale waxyaabaha manhajka aan u marayno barnaamijkan waxaa iyadana asal u ahaan doona wax la yidhahdo the science of logic waxa sayniska maangalka sababtoo alla subxaana watacaala markuu na abuuray oo uu yiri inii jaacilun fi lardi khaliifa oo ay malaa'igtu ka doodeen ay yidhaahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ilahay muxuu ka jawaabay qaala inii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay waxaydan ogeyn malaa'igay aadanaha ilaahay markuu adduunkan u doorto walaqad karamnaa bani aadama alle u yiri waa karaaminay wafadalnaahum calaa kathiiri miman khalaqnaa tafdiilan waxaa weye wuxuu ku fadilay oo khalqigaas o dhan uga duway waa maanka maskaxda iyo caqligu alla siiyey daats waay qur-aanku mar walba oo dadku la hadlaya caqligu kala hadlaya dadku ma dhahayo qur-aanku aaminuu kaliya dhihi maya lacalakum tacqiluun lacalakum tatafakkaruun liuli lalbaab lacalakum tafqahuun meel walba ku aragto qur-aanku fiqi fahma alla meelo kala duwan oo la tusay sababta alla wuxuu la khitaabaya waa maskaxdeena waa inta kale xayawaanka kama duwan haddii maskaxda laga saaro simple tahay wax kaga duwan tahay ma laha jir baa leedahay cuntay cunaysaa way cunayaan waa cabaysaa way cabayaan wax oo difference ma jiro markaas laakiin wax lagu kala duwan yahay waa maskaxaas alla uu goonida aadanaha u siiyey marka waxaanu xoogga saaraynaa iyaduna inaan mataqaanaa the science of logic sayniska maanka ama maangalka afka soomaaliga wax lagu yidhahdo inaan daraaseyno ninka haddii arrintaas la garana oo maangalka iyo laga hadlana waxaa muhiim ah in la xuso nin la yidhaahdo George Wilhelm Friedrich Hegel oo ah filasuuf u dhashay dalka Jarmalka oo Hegel la yidhaahdo magaciisana ugu dambeeya oo awoowe waxaa weeye waa qofka looga dambeeya waay falsafada ku saabsan ee sheegay logica iyo maangalka waxa ku saabsan waa qofka adduunka looga dambeeya ilaahay hadda qof kaga wacan fasiradeeda ama kala qaadkeeda ma jiro marka xoog ayaan iyadana saarayna in aan ninkaas odayga wax ka barano aan ka ogaano maangalka sidoo kale manhajka aan marayno manhajyada aan isticmaalayno waxaa kamid ah falsafada oo ah wax simple ah oo aan wax weyn ahayn inkastoo dad badan oo bulshadeena kamid ah loogu sheekeeyey waa cilmi jaaja iyo loogu sheekeeyey waa cilmi mataqaana cilmi shaydaan ama cilmi cadow in fact
waa cilmi mataqaana isheeg culumta Allah subxaana watacaala aadanaha u fududeeyey inuu ku bartaan isaga iyo koonkan ayay ka mid tahay falsafaduna waxaa weye waxay la mid tahay waa sida tusaale ahaan maxaa inta badan dhalinyarada aan u sheega waxaan ku yidhahdaa falsafadu waa sida dheefshiidka oo kale dheefshiidka cuntada inoo shiida oo kale waay sababto cuntadii hilib weyn baad goosanaysaa moos baad goosanaysaa raashin briis baad cunaysaa wixii aad cuntay oo jirkaaga galay markuu dheefshiidka tago dheefshiidka wuu shiidayaa wasaqdii kala saarsaarayaa waa kala shaandheynayaa wixii qashinka dhanka ka baxayaan baa loo dirayaa wixii nafqa ahaa oo wanaagsanaa oo jirka u fiicnaana jirka ayaa wuxuu u bedelaya dhiig marka falsafadu cilmiga ayay waxay u bedeshaa sidaas oo kale u tahay dheefshiid bay u tahay qofkii waxay fahansiinaysaa sayniskii waxay fahansiinaysaa wixii maangalka ahaa waxay fahansiinaysaa taariikhdii waxaasoo dhan waxa kala furfuraya kala dhigdhigaya waa falsafada wa marka waa important mawduuceena aan ka hadlayno xaggee ka nimid xaggeena u soconaa falsafada marka falsafada waxaan ka soo qaadanaynaa laba branch oo ka mid ah falsafada ayaan xoogga saari doonaa labadaas laan mid waxaa weeye metaphysics midna waa epistemology metaphysics waa wixii la xiriira jiritaanka qaybtaasi waxay aad u dhigaysaa jiritaanka waa meesha uu ninka la yihahdo Aristotle uu aadku mataqaana ugu soo baxay oo sida fiican uu dadka oga hadlay jiritaanka wuxuu yahay iyo jiritaanka alle iyo jiritaanka koonka iyo waxyaabahaas oo dhan waxay yihiin iyo sida loo fahmi karo iyo xaqiiqda waxay tahay reality-ga waa maxay reality hadda tiraahdo waxaan waa xaqiiq haddaan ku dhaho hadda aniga kula hadlayo xaqiiq baan ahay inaan jiro oon kula hadlayo marka maxay tahay xaqiiqdaasi inaan jiro inaan kula hadlayo maxay tahay midkana waxaa kaloo ay iyadana ka hadlaysaa waxa la yihahdo jirayaal aan jirin wax jira laakiin aan jirin bay iyaduna ay qaadaa dhigaysaa marka iyaduna insha allahu tacaala waqtigeeda iyo xilligeeda iyo xalqadeeda baan u imaaday epistemology iyadana ku saabsan aragtida ogaanshaha the theory of knowledge ay iyaduna kala dhigaysaa oo ah waxa mataqaana noo saamaxay inaan hadda aan isla hadalno aad dhegaysataan oo aad mataqaana waxaan ka hadlaya aad fahamno oo isla khitaabno ku saabsan marka cilmigii ku saabsanaa aragtida ogaanshaha iyo the theory of knowledge ayaan kaga hadlaynaa su-aalaha ugu waaweyn oo la isweydiinaya waxay tahay jiritaanka iyo siyaasad sideedaba falsafadihii hore ilaa iyo hadda kuwa hadda waxa ugu weyn ay qaada dhigaan ama muranka keena ama mar walba lagu soo celceliyo oo qolaba si ay u fasirto waxa weeye wax aad looga hadlaa waa jiritaanka iyo ogaanta waa labadaas shay jiritaanka oo isugu jira jiritaanka alle iyo jiritaanka koonka oo ku jira annagii iyo dadkii iyo wixii kale oo nooloo dhan ku jiraan iyo koonkii iyo oo dhan labadaas ah iyo ogaanshihii existence and knowledge labadaas waxaan ahayn kama baxdo dooda labadaasi ku jirtaa always kuwii hore oo dhowr kun oo sano ka hor jiray waqtigii Aristotle iyo wixii ka dambeeyey iyo raggii faraha badnaa oo falsafadii faraha badnayd ilaa hadda kuwoodii muslimka ay kuwaan muslimka ay kuwoodii carabta kuwaan carabta dhamaantood wixii la wada qaadan taskeen sidoo kale waxaan iyadana aan manhaj ahaan isticmaalayna waxa la yiraahdo the theory of falsification aragtida beeninta oo uu dhisay oo uu sameeyay in oran jiray Karl Popper marka principle of falsification oo iyadana ku saabsan aragtidii qofka markaad wax sheegtid aad tiraahdo waxaasaa jira waxa laga rabaa wixii inaad keentid wadada umartay iyo in la tijaabin karo waxaan inay lagu ku taagan yihiin ay leeyihiin in kale wala la ruuxaya fikir baad keentay waxaad tiri ilaahay baa jira okay oo fikir ahaan rumayn ahaan waa gooni waa rumaysanahay laakiin fikir ahaan baad u keentay iyo sharaxaan waxaad tiri ilaahay waa jira marka su'aalaha laga keenaya soo ku jira xagee jooga xagee ka yimid yaa abuuray suu yahay xiriirku la leeyahay isaga iyo koonka muxuu yahay xiriirka koonku isagu la leeyahay muxuu yahay xiriirka dadka isagu su'aalaha ka imaanaya marka waxaa laga rabaa aragtidaada inay noqoto aragti dhisan oo xoogan oo lagu ay ku taagan tahay leedahay laakiin hadday noqoto mid hal lagu ku taagan ama jiis ah hore laga tuuraya marka meeshana wuxuu kuma helaysa marka iyadana muhiim ay noo tahay the theory of falsification wixii aan soo aad baan u isticmaali doonaa haddii aan idmo marka ereyada cilmiga ah oo aan isticmaalayno oo afka Soomaaliga aan u turjumi doono waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr qaamuuska afka Soomaaliga oo qoray Allah u naxariistay aqoonyahan Yaasiin Cusmaan Keenadiid buugiisii oo qoray 75tii baan jeclaa inay ahayd weyna baan isaguna aan hayaa oo aan wixii af Soomaali ku saabsan
oo turjumada ereyada cilmiga ah halkaasaan kasoo qaadan doonaa. sidoo kale waxaan isticmaali doonaa qaamuuska afka soomaaliga uu qoray professor cabdalla mansuur iyo professor ananrita oo ahayd professorad talyaani ah baa iyadana isticmaali doonaa. marka dadka expertiga ah oo programkan xoogiisa waxaa uga faa'iideyna waxaa koow ka ah oo aan aad u isticmaali doono oo udub dhaxaadka u ah barnaamijkan oo dhan waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo professor David Christman oo ah nin mataqaana taariikhyahan ah oo macallin ka soo noqday jaamacad ku taala Australia iyo jaamacadan Mareykanka ku taala California, qoraa weyn ah aad loo ixtiraamo, buug qoray la yidhaahdo A Big History of Everything. waana buuggan wuxuu noqon doonaa buug udub dhaxaad u ah, tiir dhaxaad u ah, laf dhabar u ah barnaamijkan, sababtoo ah buug wuxuu ka soo bilaabayaa waa saan u rabnoo kale, wuxuu ka soo bilaabayaa from the big bang, qaraxii weynaa bilowgiisii ilaa iyo xaaladda hadda aan ku jirno iyo what's next iyo adduunka meeshuu aaday iyo qamar sanaacigan la aaday iyo dayaxan la aaday iyo meelaha kale la sii socdo ayaa iyaduna mataqaana isha qayb ka noqon doona insha Allah. sidoo kale waxaa iyaduna qayb ka noqon doona ninka la yiraahdo astrophysicist Dr. Neil Tyson oo ah nin ku takhasusay cilmi falaga, marka waa nin abwaag badan qoray, barnaamijyo badan sameeyay. waxa laga yaabaa qaarkiin barnaamijyadiisa daawateen. barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijka caanka ah ee la yiraahdo Cosmos Space Time Odyssey, rixladii oo adduunka uu kusoo wareegayo imaginationka ahayd oo uu sayniska iyo cilumta isku soo bardhigay, iyo rixlada kale tii dambe cusbayd oo hadda soo baxay sanadkan iyadana la yiraahdo Cosmos Possible Worlds, suurtagal inay adduumo kala jiraan oo iyadana uu ku falanqeynayo kusoo qaaday. labadaasna ayaanu insha Allah taala xooga saarayna. marka qaybaha barnaamijka imaan doona inta hadda aan ogahay ama aan falanqeeyay ama aan wax ka baaray, xalqada xigta waxay noqon doontaa insha Allah taala inaan ka hadlno jiritaanka koonka, jiritaanka alle. waxaa laga yaabaa inay noqoto xalaqaad dhowr ah jiritaanka aan ku celcelinno, qaybo aan iska taagno xaglooyin kala duwan aan iska taagno si aan barnaamijka usoo bandhigno. waxaan ka hadli doonaa waxaa ka mid ah insha Allah taala the big bang, qaraxii weynaa ee adduunka uu ku bilaabmay, qaabkay ahayd, history ahaan wixii laga qoray, taariikh ahaan iyo saynis ahaan. saynisku wuxuu ogaaday the latest, waxyaabihii ugu dambeeyay saynisku hadda ogaaday ayaan soo qaadan doonaa, sida mataqaanaa the theory of inflation oo hadda mar dhow dad ay ku heleen mataqaanaa saynisyahanno ku heleen award theoryga mataqaanaa inflationka. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa space time, xilliga, waqtiga waa maxay, waqtiga muxuu yahay, saacaddu maxay tahay, saacadda aan anagu isticmaalno iyo saacadda malaa'igtu isku mid miya. ilaah subxaana watacaala isagoo taas noo talbiixinaya waatuu yidhi wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun, hal maalin ilaahay agtiisa waxay la mid tahay 1000 sano waxaad tirsanaysaan. marka halkaas waxaa ka cad waxa la yidhahdo inay kala duwanaansho uu jiro xilliyada iyo saacaddu inay kala duwan tahay. saacad annaga teena ka yar, teenan ka weyn, labada way jirtaa. marka insha Allah taala waan kala dhigi doonaa. waxaan ka hadli doonaa relativity oo ah mataqaana isku eegidda, theoryga isku eegidda baan insha Allah taala haddii alla idmo baan aad usoo aan uga hadli doonaa. uu qoran uu soo bandhigay ninka la dhihi jiray saynisyahanka la dhihi jiray Albert Einstein. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa theory of knowledge oo hadda mar dhow cabaarka horan ka hadlay, xalqa gooniya u samaynayna aragtida ogaanshaha epistemology aan galayna. markaas insha Allah waxaan ka hadli doonaa markaas xalaqaad ku xiga appearance life on earth, markii ugu horeysay noloshu ee adduunka ay kasoo muuqatay, sifa noocay ahayd, maxay ahaayeen baan ka sheekeyn doonaa insha Allah ilaa iyo aan ku keenno aadanaha. waxaan ka sheekeyn doonaa marka xilaqadaas ku xigta the arrival of humans on earth, aadanuhu markuu adduunka yimid ama bini aadamka qaybihiisa kala duwan oo aynu la kala yaqaano ayaanu kala dhigi doonaa haddii alla idmo. waxaa ku xigi doona markaas the theory of evolution, theoryga aadka muranka badan u dhalay dad muslimiin badana ay gaalaysiiyeen ciddii soo hadal qaada oo ah mataqaanaa aragtida tatawurka aadanahu inuu mataqaanaa tatawur soo sameeyey oo mataqaanaa marxalado badan soo maray. marka insha Allah xalqa gooni ah ayaan ku falanqeyn doonaa, kaga sheekeyn doonaa waxa nooga aadan muslimiin ahaan inaan ka fahanno aragtidaas, inagoonan diideynin, inagoonan wada aqbalaynin, laakiin si meel dhaxa ayaan uga fikiri doonaa. waxaa kaloo iyadana aan ka hadli doonaa xalqad oo iyadana falsafada gooni u ah oo ku saabsan human and universal dialects oo ah dadka iyo adduunka loolanka ka dhexeeya. loolan waa maxay? loolan baa nagu jira annaga, qof walba ama shay walba adduunka jooga wuxuu leeyahay loolan isaga gooni u ah iyo loolan uu la wadaago meesha waxa uu la nool yahay.
qofka gacantan haddaan gacanteyda waxay leedahay keligeed loolan ka dhexeeya haddana waxaa jirta loolan ka dhexeeya gacanteyda midigta iyo gacanteyda bidixda ah haddana loolan ka dhexeeya waxaa jira aniga iyo koonka aan nolahay wax walbana sidaas oo kale marka insha allahu tacaala xalqa gooni ah ayaan iyaduna si gooni ayaan ku falanqeyn doonaa waxaan ka sheekeyn doonaa taariikhda waxaan ka sheekeyn doonaa falaasafadii hore iyo waxay adduunka kusoo biiriyeen iyo ay kusoo kordhiyeen nolosheena ayaan ka sheekeyn doonaa waxaan kaloo ka sheekeyn doonaa xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo rabbigiisa xiriirkii ka bilaabmay waxaan kasoo bilaabeynaa waktigii nebi nuux waxaan ka sheekeynayna macnaha diimaha markay bilaabmeen waa taariikh wey nebi nuux waan kasoo bilaabeynaa diintii markuu soo bilaabmay ilaa aan nebi maxamed sal slam aan ku dhimaano haddana waxaan samayn doonaa xalaqaad gooni ah ama xalaqaad gooni ah aan kaga sheekeynayna nebi maxamed iyo risaaladii watay si ka duwan sida qaababkii hore aan u maqli jirnay qaab ka duwan ayaan kaga sheekeynayna waxaan soo ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala the golden age of islam taariikhdii qaybtii dahabiga ahayd xilligii dahabiga ahaa ee soo maray muslimiinta oo ay adduunka dhan haysteen ay aqoonta sayniska iyagu loo aadi jiray wax laga baran jiray ay boqorada yurubta oo faransiiska iyo ingiriiska iyo gabdhahooda iyo wiilasha kaliya xataa gabdhahooda ay u diri jireen andalus si ay uga soo bartaan cilmiga muslimiinta baan ka sheekeyn doonaa waxaan ka sheekeyn doonaa marka aan kasoo tagno enlightenmentigii waqtigii baraaruga yurub ay baraarugeys oo qarniyada dhexe cusuurtii dhexe kun iyo lixdii boqol wixii ka dambeeyey ayaan iyadana ka sheekeyn doonaa waxaan ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala industrial revolution gacaankii warshadaha gacaankii faransiiska wax sababihii ku yimaadeen waxay aadanaha kusoo kordhiyeen waxaan kaloo geli doonaa scramble for africa and colonization taariikhdii ku saabsanayd boobkii africa iyo isticmaalkii africa gumeysiga africa baan ka geli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa insha allahu tacaala dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka iyo sababihii keena dagaalkii koowaad adduunka sababihii keena dagaalkii labaad adduunka maxay ku yimaadeen maxay soo kordhiyeen maxaa hadda dagaal kaloo weyn adduunka u dhici waayey waxaan kaloo ka hadli doonaa dagaalkii qoobaa iyaduna xalqa gooniya iyo waxaan kaloo iyaduna ka hadli doonaa tallaabadii weyneed ee aadanuhu uu qaaday oo ahayd markuu dayax tegay moonlanding wax loo yaqaan dayax ku degidii dayaxa markii dayaxu aadanuhu tegay oo ahayd tallaabo aad u weyn uu qaaday ayaan kaga sheekeyn doonaa insha allahu tacaala waxaan kaloo markaas aan geli doonaa iyaduna si xalaqaad gooni ah originka meeshay kasoo jeedaan soomaali haddaan waxay kasoo jeednaa soomaali badankooda waxay ku murmaan carab baan nahay qaar waxay yidhahdaan maya mana hine afrikaan baan nahay marka insha allahu tacaala si cilmiya oo taariikhi oo sugan ayaan ka sheekeyn doonaa soomaalidu ma carab baa soomaalidu ma afrikaan baa maxay yihiin soomaalidu waxay ka yimaadeen danna waxaan geli doonaa insha allahu tacaala taariikhda soomaaliya inaan soo dhirno waqtiyadii hore waqtiyada dhexe aan soo gaarsiino ilaa iyo xilligii gumaystaha aan iska tuurnay ilaa aan mataqaanaa dowlad noqonay iyo burburkii dowladeennii kadibna waxaan ka sheekeyn doonaa xalaqaad gooni ah why Somalia failed as a state Somalia maxay u fashilmatay inay wadan ahaan noqoto kadibna waxaan geli doonaa qaybta labaad ee barnaamijkeena oo ah where are we going marka insha Allah taala waxaan ku baraarujinayaa cinwaanada hadda aan soo sheegay oo aan ka sheekeyn doono xalaqooyinka soo socda waxaa laga yaabaa in ay wax iska bedelaan ama gabi ahaanba isbedelaan ama qayb ka mid ah isbedelaan marka saas inaan la socotaan rabaa insha Allah taala xalaqadeennii ku saabsanayd manhajka aan u maraynay barnaamijkan aadka u weyn intaas ayuu maanta ku egyahay inta aanu ku kulmi doono kulankan kulan xiga waxaan idinkaga tegayaa khayr iyo baraare iyo barwaaqo dhammaantiin